halkan inaan ka dhaho video waxaan arkay indhahan aan u roonayn dhagahana aan u roonayn ee aad u farxun ee gabar fanaanad isku sheega ee soo duubtay ani run ahaantii gabadha ma aqaani mana aha fanaanadan hore u aqaana ma u arki jiray magaceedana saan jeclahay nimcad degan inay yidhahdaan jeclahay gabadhu ha ka hadasho qadiyadeeda ha ka hadasho waxay aaminsan tahay dhihi maayo maxay tiraahdaa qof walba fanaanka maxay tiraahdaa waxaa xadidan qadiyadiisa qofku wuxuu aaminsan yahay asaga u taalaa lama dhihi karo muxuu aaminsan yahay muxuu saas u yeelaya laakiin inaad fanaanad qaran oo sharaf leh oo hooyo ah oo agtarad ah oo magac ku leh bulshada dhexdeeda inaad hortar aflagaadayso waa wax aan loo dulqaadan doonin loona dulqaadanaynin laakiin anigu arrintan waxaan u arkaa kusoo caanbax maadaama anigii oo mike city aanan ku aqoon walaalo horta shicibkiina kuma yaqaanaanba marka dad istiri maama nakruumo kusoo caanbax saas laguma soo caanbaxo at least waxay ahayd inaad raasitid dhalinyarada yaryar ma inaad waa beri ka bilowdid marka sidaa darteed maama nakruumo haddaan nahay fanaaniin magaca fanaaniin sheegano gaar ahaan fanaaniinta North America maamo waan ku xaal marinay waan ku xaal marin doonaa waan ka raali gelinaynaa aflagaadadii iyo hadaladii xumaa iyo lagu geystay sidii loogu hadlo waa waxaan ka gubanay ma aha waxaan u dulqaadanayno maama ka raali aho 100% waxaa kaloo tiri gabdha yaryar ee soo hadlay saana gabdhaha yaryar ee soo hadlay waa gabdhaha maanta fanka furaha u haya haddaan kuu sheego hadday hodan cabdiraxmaan ahaan lahayd hadday farxiya kabeer ahaan lahayd hadday ahaan lahayd fanaaniinta gabdhihii kaloo dhan soo hadlay waa gabdhaha maanta fanka hormuudka u ah oo saqiirku dhagaysto marka walaal macaanto wax kaloo ku soo caanbaxin ilaahay ku sahlo fanaanada bawaabrina ha aflagaadeyni adiga ku tahay maxaa tiraahdaa sharaf xumo oo gabar ahaan ayay kuugu xuntay fanaan ahaan kuugu xubasan kuma naqaanina fanaanad tahay intaasaan kaga bax warkayga